mid ka mid ah ereyada ugu quruxda badan ee uu jecel yahay bini'aadamku inuu maqlo noloshiisa waa ereyga guusha. Qeexitaanka maadiga ah ee adduunyo ee guushu waa hanashada shay waqti badani kaaga baxay oo aad rabtay inaad maalin uun ka gaadho. Shaygaas oo mirihiisu ay noqon karaan kuwa caafimaad, kuwa maal, kuwa aqooneed iyo kuwa kaleba. Bal ka waran haddii aad wax baratid, jaamacad dhamaysid, digrii fara badan qaadatid, shaqaale noqotid, kumanaan kun oo dollar ku shaqaysid, hanti samaysatid, ganacsi adiga kuu gaara abuurtid, maal fara badan aad samaysatid, dakhligaaga uu aad u bato, guryo badan aad dhisatid, xaasas aad guursatid, kadibna awlaad badan ay kuu dhalaan, kadibna aad noqotid nin ballaaran oo hanti iyo dad iyo dunyaba buuxa. Ma noqonaysaa guur rasmi ah oo kuu damaanad qaadaysa in noloshaada inta ka dhiman aad raaxo, caafimaad, nolol waarta aad ku noolaanaysid? Haddaba jawaabtu waa maya. Dhammaan arrimahaasi si kastoo aad u haysatid, aakhirka dambe masiirkaagu halka uu noqonayo waa kafan yar oo cad intii lagugu duubo in iil yar lagu geliyo, kadibna dhoobo lagugu awdo, kadibna ciid lagaa sarraysiiyo, sidaana adduunka lagaaga duugo. Haddaba guusha rasmiga ah Rabbiga kownkan abuuray ayaa inoo sheegay. Rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo guusha ka hadlaya waxa uu yidhi: kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf waliba waxa ay dhandhaminaysaa geeri oo waxa ay ku dambaynaysaa geeri. wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama, maalinta qiyaamana camalkii aad soo shaqaysateen ayaan idiin oofinaynaa. waatan halka aan u socdo. Rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi: faman zuxzixa cani nnaari, qofkii naar laga dhufto, naar laga badbaado, wa udkhila aljannata, jannana la geliyo, faqad faaz, kaasun baa liibaanay. liibaanta rasmiga ah iyo guusha rasmiga ah kaasun baa gaaray. taa cagsigeeda muxuu noqon karaa khasaaraha iyo guuldarradu? iyadana Rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa inoo caddeeyey oo aayadan ayuu wuxuu ku yidhi: qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaamah. nebi maxamed ow dheh, kuwa sida dhabta u khasaaray waa kuwa khasaaray maalinta qiyaame iyaga iyo ehelkoodu. noloshan adduunyo waxba ha isku mashquulinin. haddii aad ka heshid luqmadda aad cunaysid, biilka ciyaalkaaga iyo waalidkaagu ay kuu cunayaan, meel aad seexatid iyo maryo aad xiratid, muhiimaddu waxa weeye inaad aakhiro u shaqaysatid. qodobka la rabo inaad iska ilaashatid waxa weeye in aad u shaqaysashada daarta gaaban aad ku ilowdid inaad u shaqaysato daarta dambe ee lagu waari doono. aad baa u mahadsantihiin. muuqaalka like saara si uu asxaab badan u gaaro, sii share gareeya si walaalo fara badan ay uga faa'iidaystaan, nana soo follow gareeya si muuqaalo fara badan oo wacyigelina aad nooga faa'iidid.